السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دhowaantiin daawadayaal soo dhawaada meel kasta oo dunida daafeeda ka joogtaan waxaan maanta idin haynaa qiso aad iyo aad u cajiib leh waxaana inooga qisoon doona walaalkeen Cubayd soo dhawo Cubayd waa mahadsantahay Mr. Maxamed Cabdullaahi maanta qisadan rabo inaan ka sheekeeyo aan ka doonayo ka sheekeyno waxay ku saabsan tahay hadda ka hor waxa dhacday xilliga Nabiga Suleymaan alayhi salaam وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم marka waxa dhacday ninkan jinni buu ahaa jinni ayaa meel wax doona nin kalluumaysato ah oo saddex ciyaal hooyadu haysta ayaa badda ku kalahay waxbuu ka soo waayay maalin kale ku kalahay waxbuu ka soo waayay maalin kale ku soo kalahay maalin saddex marka mar kasta oo soo ku kalahana wuxuu helaa mar qurux buu helay marna dabar baqta ayuu helay دار بقتي شواطئ وصور قبته هاي مركب وصور قبته وحيي أهد بنيك والله يا أبي وحيي وروحنا إذا وديتي أنت مركب بقتك شواطئ يسوق كلامه نجحني واحد نجح يا كريم هاي مركب دم إلهي وحق دري وصور قبته شبقي وصور قبته جلحد أما عشوين هاي يبط صور قبته بدها مركب صور قبته كاس وحيي أو حتى يدرتي ويجي أو تاجرتي هاي جلحد أقابتي أدوها وجرت ده وجرت أيه وحقك كتيم بريسان أو كحران أيه نبي الله سليمان عليه السلام عليه الصلاة والسلام تيم بريسي أيه مركزو كلا بطي أو فرحي أيه لما في النفخري وهاي موجودة وحيي حتى هبورك عائلة توري بوجري هروب متى هروب والك هروب يا توري يا توري وري أنا كودي عليه ديك صوفر أحسن وجي بي مر أيه أنا ماشي اللي جبي الريموت ماشي تيم راحت جبي حضرنا ملك أسير دعي وحنا كسر بابها القيق قيق يا كسر هو إركا يقيق سو شرارة أيه نكيا نكفار قيق وحكسر درمبا بها الوينو جنيا يا كسر بوديبا جن عاية جن عاية كسر بوديبا ما تحسوا حاجة جوا ما نحن حجوا لك سما سرع أيه لوجيس أوكي يلا هل بصوت صفر صوت أيه مركز الشيء مركز أركض نحن أنا بنحيا أذي أنا حي ها أيه شكلها أد بان الله يابا هبينا أركض مركز آخرية وأقول قروي باقي يابا مركز نيكي مركز نيكي حويري صاحب وأقول له يابا أيه صاحب أقول له يا وجنكي جلحد اللي وصل وصل كسر حي ما حد يدري والله محب حد يقول لي سان مسكين يا هو يا أصله العنق يا نقودية إن هذا روح يدري مسكين بدك أكلم يستانه وحويري مايا وأقول له يا أبوي أيه بطاطا أقول له يا أبوي لكن أنت قلت لي عن قصتك حاجة عيوي أيه قصتي بوقع عمرك أيه وحويري حلقة نبي الله سليمان عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيه وحد عليه ويري وزير زكبيده هرت هو الأمر ديده وير أمر ديده ينسمي أيه وحاسس مركب عير وزيرات كبيده يلا يدري وير سوق بدك عليه ولا سوق بتوي النبي قال لك عليه الصلاة والسلام وحير توحيد كل واقريا أيه ما حين نبي الله سليمان عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحن أمضاه النبي أشهر الله صخر يسقر له سيما مركز عير وكديده وير أيه تجين كان يو شيطان كان مردنتان موقته ما دنتان sababtoo kii nabiga aad la soo saaray ba hadii la hada jooga bog la hada jooga hotelnaya xukuma waxaan markaasi wuxuu yiri waan ka amardiday marka nabiga Suleymaan markuu amarkii aan ka diiday nabiga wasiirku waxa amar lagu siiyay inaan jalxadan afka laga xiro badda gunteeda la dhiga uu yiri ilaa qiyaamaha aan ku dhamaysto waqtiga dhanba ay marka 100 sano soo martay uu yiri waxaan bariyay buu yiri oo dhahay buu yiri yaan wanaagsiya oo waxa lagu xudoona nolol aan siya intuu meesha ka soo bixiya isii daayay buu yiri waan 100 sano dhaftay haddana 100 sano wuxuu yiri haddana waan nadray buu yiri waxa uu nadray buu yiri ninka intuu soo qabtaan la iga soo saara inaan siya oo iga xariga furay buu yiri inaan siin doono wax alla wixii doono oo maskaxdiisa ku soo dhaca oo nolol adduunyada yaan siin ama 100 sano noqoto maxay shayaadiintana wax soo la saqarin buu هكذا هذا هو سيسان شيء هذا سيسان هذا واحد أود إنه واشته هذا كدكتور عملت لي
قبل بحطنا واشنطن جوتنا هذا لو كين هذا لو كين ما كاش محمد oo marka sheekadan ku sii wade waxa cajiib weeyaan 100 san 200 markaasi saa ku dhamaatay weey boqolkii afraad markay martay yaa waxay dhihi yaan dil noocu doono aan ku dilaa noocu doono adoo gowrac dhagax jar maqar ka bixin ilka saarid ma garata caloolka soo bixin ma artay waranku dilid nooca yaan adu dilaa un sida ugu doona oo dulkii ugu xun aan ku dilaa farday halka inta laga qaado waranka la soo waasha laga maqar laska war taas waa geeriyaal hal geeriyaal waa geeriyaal maxamed marka waxa dhacday marka adiga ayaa wuxuu yiri shabaq soo dhacay shabaq dilkuna go'aankii dilkana haystay hadda haye saadarteed waan ku dilayaa waa markaas wuxuu yiri inaad yaro waan ku bariyaa wax ka dhamada atawdi iyo cabaadki iyo eeshagashadi iyo walbaar ba ka dhamaaday cabasho deen waay hadda dhan waas wuxuu mushkiladan war maanaaba wuxuu yiri soo dhigtay wiil nool raasan lahay cadaab dooro niga nool barhadin ma geeri waan doonaa geeri waan doonaa wiil war maxay geeri waa walbaar iyo hadda ka hor waxaan ka hadalnay shimir loo yiri qumbro ninkii ugaarsanay wuxuu yiri fagaatay marka ninkii qadiyadii waa yaabay marka wuxuu yiri waan ku dilayaa saaxiib sidaas dhacday waxaan u baahanahay inaad nooca u baahato oo dil ah inaan ku dilo qishadaas way dheer tahay qaybtii labaad baan ka dhignay maadaama waqti uu kooban yahay dadka marna bulsho marka arintaas ka hor waxa ku mar leh soo mar leh qisadaas waa qibada waa meel laga baxo mar ninku yiri go'aankii waan goostay waan ku dilayaa maxkamad miya shaqina soo dhacday meel calaa ma marka tabar noqon marka maxaad dhihi lahayd haddii aad waqti inta yaad chance yar baa haysatay lagu dhaho maxamed oo maanta oo lu yiri waxa haystaa intaas baa haystaa maxaa samayn lahayd ilaahay ma qadarey oo leena sideenin loo sideenin ninka had go'aan buu gaadho oo 100 sano iyo 100 sano oo la yiri war maxaan ku siiyaa waxa doonto sheego oo soo ay dhaaftay oo to kala dhaaftay yaa tii dilka iyo soo galayba asna carur iyo ka soo muxuu raayna biil u keeno oo bad buu aad kalluun buu doon buu wata shabaqa dhibaato soo galayba marka aan waxa soo ilaha ina dhahay waxa igu roonaan lahayd kullu la sideen lacag aan reerka uga tago kan kadibna adduunyada way dhaafata doonto su'aal ma ku weydiinay marba dhibaato reerka waxa falado reer gaashay ma dhibaato waxa ku sheegi baado ha iska noolaada nolol dambe ciyaarko galiyo iska si noolaadaan iska noolaanaya nolol iska marka iska lacagaysan hadii lacag dhin aan ka helo waa iska waa gartay واي بحب خلاصنا بالشدة بحاله عجبك شكلنا قصة نهرت وقصة دي عجيبة مركا قصة كل يدك واحد من بكفاية دوران مسكحيا وحبيبه فايدة دوران مركا لا سمع قيبت لبعض وقيبت كوباديا هاي مركا قصة هالكاسة كسر قبودي قيبت لبعض ونقص دوران إن شاء الله تعالى فيديو كحيجينا نخلينا اسكدينا هذا نوع سبتين سبسكرايب صار جل الكونس الشرقية أصحابتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.